gudbo kadib waxaa inoo xiga in la fahmo waxaan ka wadno afar waxyaabood oo loo yaqaano measurementska level of measurementska measurementiga shayga variablekaa soo saarayno wuxuu lahaa cabiraad adduunka shay kasta wuxuu leeyahay cabir uu leeyahay scale ama waxa la maxay measurementiga marka shaygaan sheegno shaygaas it can be this four ama nominal waaye ama ordinal waaye ama interval waaye ama ratio waaye mid kastana tusaalaha ka bixiyo si loo garto haddaan ka bilaabo nominal horta sideedaba nominalka iyo ordinal waxay hoos tagaan markaan joogno qualitative yay hoos tagaan kanay hoos tagaan markaan qualitative haysto that qualitative kan haysto maxay it can be nominal or it can be ordinal intervalka iyo ratio waxay hoos tagaan markaan haysto quantitative variable oo kan ah you get the point aan kala saarno afar shay waaye laba maxay raacday waa variable aan numberka qaadan karin laba maxay raacday kuwa qaata numberkay raacday soo ma waa four si kalena uu sheego kuwan xogta midna category waaye waa level waaye midna category maahan xogta markay category tahay ayaa kuwa la isticmaalaa stillna qualitative waaye waa waxa number ahayn waaye okay aan soo koobo tusaalahaan fiiri very simple aan soo koobo oo short way ah tusaale ahaan waxaan ku weydiiyey inaan ka hadlo hal variable مثلا قف أنا عمل عبد الناصر هان هلا عبد الناصر روبله أنا 40 سكان معاهم كويدي ديتو رايتس معاهم كويدي ديتو معه بانتاي لو فاريبل رايت معه بانتاي لو age كي زمان كهذا فاريبل وحبرشي زمان كهذا فاريبل كلوا كلر كي زمان كهذا variable كلوا gender كي زمان كهذا variable كلوا income كي زمان كهذا variable كلوا you see IQ wax kala marka intaas marka sukeen maxay noqotay daato macluumaad kadibna waxa aan gaari karnaa Cabdinaasir qof noocee waay okay fine kasoo qaatay waxa soo qaatay variable kamid ah qualification marka qualification kiis qofkaas muxuu yahay okay fine maxaa jiri karo PhD maxaa jiri karo master level maxaa jiri karo bachelor maxaa jiri karo diploma soma secondary level okay سؤال حتى كو this variable qualitative must quantitative the answer is qualitative because ترى maahan maxaa sugayna these two nominal ama ordinal erga fiiri ordinalka wuxuu ka yimid order ordinal wuxuu ka yimid order maxaa waay nidaam waay order and law maxaa waay kala dambeyn marka ergaas order ahaan luqad ahaan orderkaas waa nidaam marka haddii qualitative-ka tirada aan numberka ahayn loo tixgelinayo qaab kale horeena ordinal waaye haddii kale nominal waaye haddii marka fiiri maxaan dhahnay PhD master bachelor diploma certificate haddii kale horeen loo tixgelinayo maxay ordinal waaye haddii laakiin loo tixgelinayn ee caadatan maxay nominal ka xigtay normal aan ku celiyo haddii variable-ka oo qualitative yahay aana tixgelinta kala horeynta jirin nominal waaye laakiin hadduu kala horeyn jiro ordinal waaye xag waxaan kaga baxna maxay markaan joogno maxay markaan ka hadlayo waxaan naqaano qualitative iyo wax la maxay quantiga haddii aan marka aan sii iftiin xoogaa saaba ka bixiyo مثلا waxaan rabnaa inaan ka hadlo waxa loo yaqaano anything soo qaado tusaale ahaan genderka maxaa dhici kara genderka maxay waa female iyo male muxuu noqday genderka waa qualitative waaye soo ma kadibna haddii aan tixgelinayo who is first who is second hadduu order jiro ordinal waaye haddii la isku mid yihiin kiisoo hormar maxay nominal waaye marka nominalkii ordinalka maxay waa laba variable waaye waxayna hoos tagaan
quality hoos tagaan kadib maxay it can be ordinal or it can be nominal waxaa ku soo haray intervalka ratio-ga labada variable waxay hoos tagaan markaan joogno quantitative wax number ah numberskan ogsoonahay it can be 2 marka inuu yahay number loo qoray qaab interval ah intervalku waa shay leh bilow iyo dhamaad interval carabi ahaan waa fatra waa xilli maxaa waa xilliga waa wuxuu ku bilaawdaa waqti iyo waqti sooma marka intervalka waa shay leh bar bilow iyo bar dhamaad tusaale مثلا في statistics waxaa loo yaqaanaa social science waa cilmiga bulshada u adeega ay warbixin keenaa marka bulshada ma sinna ay nooc isugu jiraan inta ummadda ay ka kooban tahay qof fiican qof wanaagsan qof xun qof saana qof been badan qof because xogta raadin xogtaasi waxay tahay xog sax ah yaan wareysanaya bulshadii yaa ku jiro ay nooc ku jiro mid waa serious waay mid iskafta badan yahay mid beenlow waay mid turftoor waay mid wadaad waay mid nadiif waay mid aamin waay whatever sidan xog looga helo maxay waxaa u baahanahay inaan isticmaalno technique macquula marka interval badan waxaa u isticmaalnaa su'aalaha qaar sensitive-ka ah ee qofka bini aadamka inuu sheego uusan ogoleen tusaale waxaa ka mid ah qofka interview la wareysanayo waxyaabaha qaar waa simple oo common waa waxyaabaha qaar qofkaas ma ku sheegayo waa qarnaa tusaale what's your gender rag iyo dumar ma qarin karaa ma qarin karo wala aniga ragaan ahay waan ku sheegaya xaggee degan tahay degma hebel ku sheegaya مثلا what's your weight miisaanka waa sheegi karaa laakiin markaa what's your income hore ma sheegayo bish maxaan qaataa qofka wuxuu qaadanayaa bows in xoogaa aamuso maskaxda ka shaqaysiiyo yaa ku wareysanayo qof hebel qofka waxaa ka imaan karo ma ku shaxaadi karaa qof marka inuu mashaakilka qofka kuu sheego waa adag tahay seconds kadib ku abs kadib kuley wallaahi aniga alxamdulillah waa dhaqanaya imsaa qaataa alxamdulillah waa dhaqanaya ma kuu sheegayo waa qofka fikiraya waa jeesanaya ilaa kadib oo soo tufo number khalda marka والله waxaa qaataan because wuxuu sameeyay xisaabtamay qofka muxuu yahay qof nooca qof saameeya kam kadib wuxuu maskaxdiisa kadib wuxuu dhahay inta lacag qofka sheeganayo lacag wax waxay la shahaadi karin ama qof asxaabska oo ama qof qaraab guuda مش waxaa qaataa musheegad مثلا مش waxaa qaataa 5 kun mش sheegto 5000 mش daa qaato ama 6 kun mش daa qaato ama 7 kun mش daa qaato ku shaqaato qofkaas uu qorna notes مش لك نقاط ما قف كذا قرنا مسكها قرنا نقول ما أنت تصور يا رب عمرك ما أنت العقيدة because هذا شيء مو مثلا في القفة شقية سوي كله شقته سو شقية ماذا عقوقات مشاكل سبب قدو $200 لعقتها مشيها because قفة خجلة مش أنا قاتا قف شيء ملا مركي لعقت نقاطينا وكبق إلا عيبايو كي سرنا وكبق شافت أم إلا شعاو مركي محاسب يعني waxaa loo sameeyay waxa la yaqaan interval category marka interval oo marka maxaa sameyn kartaa waxaa sameyn karnaa waxaa sameyn مثلا mushaarka qofka horta ku waxa ku xiran tahay ko su'aasha ayaa weydiinaa ma shaqaale hoosa dhaxamiya ma shaqaale sarwa ee dibeyna su'aasha مثلا shaqaale dhaxmo qofkii $300 qaato $600 qofkii qaato sanduuqaas taxi qofkii qaato $600 ilaa $700 sanduuqaas taxi qofkii $700 qaato ilaa $1,200 maxay sanduuqaas taxi ilaa maxay ka badan marka qofka way fududahay inuu taxi halka because qofkii halka taxi maxay ma kala garan karo inuu train qaato inuu foor qaato because waxa ku jira gap astral wiyat qofkii kan ku doorto ma kala fahmo inuu qaato 900 800 kun boqol ilaa 200 marka waxaa ku jiro astral waxaa noqon kan interval maxaa u bixinay because from 300 ilaa 600 maxay interval waay wuxuu ka bilowdaa this one marka waa first interval second interval third waxaa la mid ah da'da
qofka toos age ha weydiin magaca hebel xagga deganahay nima taabs naag nimaha xushiga meeqayta oo fiir qofka wallahi aniga waxaa jira mugtahay waa jeesana wuxuu ku alifaa maxay qofkaas qofna caawirta muxuu ka rabaa maxaa ka imaan karo wallahi aniga waxaa jira 24 29 30 marka maxaa u sameeyaan again su-aasha مثلا secondary level ama jaamacad ama adab qofka hadduu 20 sano jiro ilaa 25 xaggaas dooro 25 ilaa 30 xaggaas dooro 30 ilaa 35 xaggaas dooro markiisi maxaa sameeyanay 5 sano asturta 5 sano waa macquul qofku qarin karaa maxaa doortay this one maxuu dhaca 25 ilaa 30 da asturun waa 30 ilaa 35 na da asturun maxaa isticmaalnay interval ayaa isticmaalnay marka waxaan filayaa in la fahmay intervalka wuxuu hoos tagaa quantitative variable waana markuu leeyahay barbilow iyo bardhamaad waxaa inoo soo haray maxay inaan ka hadalno markay tahay ratio marka ratioga waa saami ratioga waa saami tusaale qof ayaa maalinta waxaa isticmaala maalinta waxaa isticmaalaa $30 qof maalinta waxaa isticmaalaa maxay $60 qofna maalinta waxaa isticmaalaa $95 maalinta waxaa isticmaalaa $120 taqriiban okay marka waxaan rabnaa what's the ratio marka what's the ratio saamihan waxaan dhihi karnaa kan ugu lacagta yar iyo kan ugu badan what's the ratio marka okay waxaa leedahay 120 divide maxay 30 soo qeyb maxay waa 4 maxaa ka dan 4 waxaa le 4 is the ratio marka waa saami u dhexeeya maxay the lowestiga iyo the highest waxaan dhihi karnaa qofka noogu lacagta yar wuxuu qaataa afar laabka qofka noogu lacagta yar saxna waa marka ratio ahaan 104 waa fiiri markaas saantina waxay afir hal ka mid ah afartii qaybood ee kan qadma fiiri laba qaybood waxaan dhihi karnaa afar jibaarka kan noogu lacagta yar meeqo $120 afar jibaarka kan noogu lacagta yar $120 ama maxaan dhihi karnaa 30 divided by 120 divided by 30 waa 1 30 waa 4 1/4 maxay tahay markaas afar meelood meel ayuu qaataa qofka noogu da' yar kamigii afar loo qayb ka mid ah ayuu qaataa maxay qofkan marka ratioga aan soo koobno waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay waxa u naqaan maxay quantitative ka mid yahay special maxay markaan rabno hayna ka hadalno saami ama maxay share maxaa dhihi jirnaa marka waxaan ka baxnay maxay waxa u naqaano quantitative-ka iyo waxa u naqaan maxay quality-ga si guud ahaan